أنا نقول لك نشنا كلنا نوبر Soomaaliyad baan waxaan ku faanayaa inaan Soomaaliyeed ahay Ingiriis way ku kaliya laakiin aad baan u dareemay markay Soomaaliyeed toos tirina dhamaanteed adigana waxaan u faraxsanaysaa ugu hadashay xagkaaga adigoo dhalinyara adigoo aan af Soomaaliyeed ku hadlaynin Somali sidoo hadlayay hadlay adigu adiga maxaad ku weyday aniga waxaan ku ooyay iba horta waxba inoo wada gooyay horta Soomaaliyeed ah Soomaaliyeed ahay Soomaaliyeed baan ahay breemki illa garaaco albaabka hadda la garaacin yaa cid ka furaynin kana wala mushkilay yani meesha ay maanta joogto qof muslim xitaa ma joogi jirin marka siday u garaacday u mushkilaysan say horumar u gaadhay say qofku dreamkiisa uu gaadhay hadii uu daalin una caajisin Soomaalinimada waa ku faanayana waa soo gabadha kale ugu horeysay secondary school oo rag kale dhigtay ayaa iyadoo ugu kaligeed waa gabadha ugu horeysay jaamacadda taariikh bay ku leedahay jaamacad qofta kaliya oo Soomaali loo waxay Soomaali meel u joogto saan waaysan diinteena sanay ugu dhigay waxay leedahay dumarka Soomaaliyeed siyaasay ka waday أنا ما سنتي أيوة ما سنتي أيوة أنا شرانوي مادليو وكان شركة وقت كستاني ماذا أما مينيسوتا ماذا أما مجال دي سومالي دقنتانوي ماذا والقرابة سو سلام مينيسوتا زايد بحيقو تاري قاري ساتي أياجو أنا رقاري هالكان متى كلام كدير حاويا أضياشي سيدهم أنا أضياشي وقت كده اللي ينادى نسوق قاري سواحلي واحد جرى هذا اللي روح أما ما هذا كوني مزه مامبو هيا بيكي I think you can translate that. ماشو أضيجنا أريك بحلاو دلني ينادى واحد كستلو ريجين وضيجي وانو بحنانا إن يجيبونا سنة تصان
markaan leh oday ninki laxma oday haweenay We started an organization called Pastoral Peace and Development Initiative. حاجة nabadgelyada dadweynaha waa laano waxa kamid aha Ali iyo Maxamed Raayo halkan la joogo markan ani inta soo dhanaan soo socday ilaa ka gaaro meeshan hadda gaaray waxay gaarsiiyay dadkii aan la shaqeynayay UNDP aan la shaqeeyay dawladda Kenya la shaqeeyay intaana haweenkii la uga shaqeyn dadweynaha siday maskaxdooda ku bedeli karaan oo dawladdu wax la qabsan karaan oo dagaal ka dayaan yaan rabay inta marka adiga kilahay ma quseeyo ana wadano na quseeyo ani Kenya ku dhashay waligeey wadan Soomaaliya ma arkin but I can sing the Somali national anthem Somali toso so that shows I'm a Somali فريد والله مرة وين قصدي مرة وين قوسي والله waxaan rabaa inta iga tago dhalinyarada wadankan joogto iyo dhalinyarada haweenka iyo dhalinyarada gabdhaha cilmi inta laga tag lama rabo xagga diinta ha noqoto cilmiga ma aragto wax lagu raadsanayo ha noqoto ayaan hilmaamin dhaqankeena wuxuu ahaa hooyo intay la hadashay gabadheer hadda gabdhihi lama hadli karo dhalinyarada lama hadli karo laakiin waxa lala hadli karo soo dhaweyn karo waxa ka jira diinta intay qabsadaan taas ma bedel I'm very sorry I've taken long because I'm a politician and the other issue is I just want to tell you a very short and I'm very sorry a very short story. There is a fish called koi in Japan. Koi. That fish, you can plant it in a small bowl. Small bowl. It can grow to half an inch in that bowl. But when you remove it from that bowl to a pond, it can grow almost 2 feet. From that pond you take to a larger pond, it can grow up to 4 feet. What I want to say is that that fish is a woman. Of Somali. That fish is a Somali woman. You give a Somali woman a space, she will give her a fish a bigger bond, she will take 2 meters. Markan, why I'm saying that is that we need voice, we need choices, we can make a good choice and we can make a difference.